shanta shuruud ee guusha. shuruud koobaad, tallaabo qaad. runtii waa inaad wax qabataa. dadka badankooda waxay ka hadlaan waxay rabaan inay sameeyaan, laakiin haddaadan ficil samaynin weligaa guul gaari maysid. dhammaanteen waan ognahay dadku inay hadlaan laakiin aysan ku dhaqaaqaynin ficilkeeda. muhiimaddu waxay tahay in fikrado badan maskaxdeenu kusoo dhici karaan daqiiqad kasta. keliya farqiga u dhexeeya waa ku dhaqaaqida ficilka, halka ay u baahan tahay in lagu bixiyo waqti iyo dadaal dheeri ah. tanina dadka badankooda ma fahmayaan. shuruudda labaad, ha ka baqanin inaad guuldaraysato. haddii aad rabto inaad guulaysto waa inaad go'aan yeelataa. ogsoonow, qof kasta wuu qaldami karaa, halka dadka badankoodu ay sheegaan inay qalad badan galaan marka ay tijaabooyin samaynayaan. dadka intooda badan shaqo ayay abuuran, wayna ku guuldaraystaan, kadibna way ka quustaan. sidaas awgood weligooda guul ma gaaraan. iloobin, guuldaradu waa faa'iido. waxaa nafsadaada ku horumarin kartaa adigoo cashar ka qaadanaya guuldarooyinkaaga. shuruudda saddexaad, joogtayn. waa inaad diiradda saartaa mowduuc oo aad naftaada u hibaysid. waxaan wax badan ka maqalnaa sida ay dhallinyaradu ugu adag tahay inay diiradda saaraan hal mowduuc. waxa ugu waxtarka badan ee aad samayn karto waa inaad diiradda saartaa hal shay. haddii aad diiradda saarto hal mowduuc, wax badan ayaa naftaada u horumarin kartaa. shuruud afraad, ku dadaal inay jiraan dad wanaagsan oo kugu xiran. si aad u guulaysto waa inay jiraan dad kugu taageera, kugu dhiirigelinaya, sidoo kalena kugu bogaadinaya guulaha aad gaartay. dadka negatifka ah iyo kuwa guuldaraystay waxay sabab u noqon karaan inay hoos u dhac ku yimaada naftaada, si ay iyagaba u guuldaraysteen oo kale. sidaa awgeed ka feejigno inaad waqtiga qiimaha leh oo aad ka lumisid. halka dadka positifeka ah ee wanaagsan waxay kaa caawinayaan inaad diiradda saarto mowduuc aad u baahan tahay inaad ku guulaysato, oo ay ku dareensiinayaan inaad awooddeeda leedahay. shuruudda shanaad ee ugu dambaysa, ha isdhigan. si aad guul u gaarto waa inaad horey u socotaa, mar walibana naftaada ku kalsoonaataa. xitaa haddii bishii mishaar ahaan aad qaadanayso lacag ku dhowaad $100, yeelo hadaf oo la imaw bishii mishaarkaad qaadanayso in ka badan inaad qaadan kartid. tusaale ahaan, bishii haddaad 100 qaadanayso, haddii hadaf la timaadid, dadaal aad la timaadid, waqti aad gelisid, ogsoonow 100 ma ahan in ka badan inaad u qalbi kartid. taasina waxay ku gaari kartaa dadaalka iyo horumarinta naftaada. dadka inta badan hadafkoodu way gaaraan oo waxayna ku fikiraan inay gaareen guusha noloshooda, balse haddii aad naftaada ku kalsoonaatid oo dadaal dheeri ah la timaadid, hadaf kale kusii muuqan doona. shaqada aad qabanaysid waad ballaarin kartaa.